odayaasha cuqaasha waxgaradka iyo bulshada degmada Daarasalaam ayaa sheegay oo cadeeyay inay taageersan yihiin xukuumadda Soomaaliland waxa kale oo ay sheegeen inay taageersan yihiin muddo kordhinta go'aanka ka soo baxay golaha guurtida ee muddada 2 sanadood loogu kordhiyay xukuumadda Soomaaliland ee uu madaxda ka yahay Muuse Biixi Cabdi odayaashu waxa ay sheegeen in aan ahayn markii ugu horeysay ee golaha guurtida oo ah hay'adda ugu sareysa qaranka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay muddo kordhin u sameeyaan xukuumadda Soomaaliland waxaanu halkan ka taageeraynaa oo aanu si buuxda oo mug iyo miisaan la aanu taageeraynaa go'aankii golaha guurtida ee ay muddo kordhinta ugu sameeyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi akhyaartiina ka soo qayb gashay shirkan aynu iskugu nimid ee aynu ku cadeynayno kuna muujinayno taageerada aynu qarankeena u hayno Soomaaliland waxaanu halkan ka taageeranaa sidii raggii ugu horeeyay ay sheegeen muddo kordhintii ay samaysay guurtida ee ay iyaga laftooda isku kordhiyeen waqtiga iyo tii ay madaxweynaha ugu dareen 2 sanadoodba ayaanu taageersanahay waxaanu leenahay axsaabta mucaaridka ah ee ka soo horjeedsaday muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha qaranka iyo ta guurtida loo sameeyay ka soo horjeedsaday waxaanu leenahay ku soo laabta dariiqa nadiifta ah ee Soomaaliland ay ku dhisnayd ilaahay baa mahad iskale marka hore halkan isugu keenay aynu kaga hadlayno kordhintii loo kordhiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa iyo kororsimadii guurtida waanu taageersanay haddaanu nahay degmada Daarasalaam bismillaahi raxmaani raxiim ana odayaasha deegaanka degmada Daarasalaam waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi 2 sanadood ee golaha guurtida u kordhisay waanu ayidsanahay waanu barbar taaganahay guurtida isku kordhisayna waanu ayidsanahay madaxweynayaashii ka horeeyay waa loo kordhiyay Allahu naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal Daahir Riyaale Kaahin Axmed Maxamed Siiraayo madaxweyne Muuse Biixi sidaa uu ka mid yahay Bismillaahi Raxmaani Raxiim alxamdulillaah rabbil caalamiin aniga oo ah Aqil Maxamed Saambeer Cali ahna odayaasha cuqaasha degmada Daarasalaam waxa aan aad u taageeraynaa muddo kordhinta dawladda loo kordhiyay Jamhuuriyadda Soomaaliland 2 sano ah iyo 5 guurtida labadaba go'aankii golaha guurtida ay ugu kordhiyeen xukuumadda Soomaaliland oo garwadeega ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi iyo kororsimadii ay kororsadeen iyagu waanu taageersanahay 100% haddaanu nahay odayaasha iyo waxgaradka degmada Daarasalaam waxaananu leenahay ciddii doorasho doonaysa cod bay ku tagi kartaa maanta meeshii ugu wanaagsanayd bay Soomaaliland maraysaa meeshii ugu wanaagsanayd ayay maraysaa annagu waxaanu odayaasha degmada Daarasalaam iyo cuqaashoodii iyo salaadiintoodii waxaanu leenahay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ha noolaado madaxweyne ku xoog ha noolaado waxaan idin sheegayaa cidda ka horjeeda inaan muddada la kordhin 5tii soo mariba waa loo kordhin halkan waxaanu ka taageersanahay muddo kordhintii ay samaysay golaha guurtidu ay u samaysay iyaduna samaysatay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ay u samaysay loo sameeyay qayb badan oo horeba waa la sameeyay si hore la sameeyay madaxweynaha hore la sameeyay gala loo sameeyay waxa weeyaan tannatii u balami tahay waa muqaddis nabadgelyada la ilaaliyo nabadgelyada aan doonaya anigoo baaskiil saaran ninka madaxweyne doonaya isaga laftiisu waa inuu ilaaliyo anigoo baaskiil ka saaran nabadgelyada la ilaaliyo adigoo madaxweyne doonaya dadkana cid ka doonaya oo ummadda Soomaaliland cid ka doonaya nabadgelyada la ilaaliyo yaa khalkhal la gelin ha noolaato Soomaaliland cadawgeedu ha jabo calankeedu ha jiro waanu taageersanahay madaxweynaha Muuse Biixi ee loogu kordhiyay muddo kordhinta waanu taageersanahay haddaanu nahay degmada Daarasalaam Muuse Biixi anagu aad iyo aad baan u taageersanahay haddaanu nahay degmada Daarasalaam Natulaayo barakaatu anagu waxaan nahay daayirta degmada Daarasalaam dhalinyarta degmada Daarasalaam aad baan u taageersanahay Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa waayo hanjabaada iyo hatigaada oo wada Cabdiraxmaan Ciro wax lagu dooran kara maaha wax loogu loogu tagi karana maaha annaga oon reernimo iyo qabiil toona ku doonaynin
qadiyadda Somaliland ku dooranayna Muuse Biixi Cabdi annagu Cabdiraxmaan Ciro waxaanu ku dooranno oo u yaala Somaliland ma jiro